آه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalayaal meel kastoo aad joogtaan baa sharaf weyn bay ii tahay inaan maanta xalqadan aan soo wado inaad ila qaybsataan. waxayna runtii ku saabsan tahay cawaaqib xumada ka dhalan karta cawaaqib xumada ka dhalan karta siyaasadda jar iska xoorka ee Somaliland. siyaasaddaas oo ah wax runtii waxa ay maanta wadaan waa wax khatar gelin kara jiritaanka gobollada waqooyi ee Soomaaliya. maxaan sidaa u leeyahay waxaan sidaa u leeyahay waxa weeye inaynu isweydiinno war China maxay ku xajiimootaa, war China maxay awoodda ilaahay siiyey ee intaa la eg maxay isugu geysaa inay ka hortagto, war China maxay yacni wadamada adduunka ee siyaasadeeda amaba yacni internal affairskeeda faraha la soo gala wadamadaas xaggee ku dambeeyaan. aan tusaale idin soo qaado waxa la yiraahdo dhulka la yiraahdo South China Sea oo ay ku xeeran yihiin wadamada Thailand, Philippines, Indonesia, adigu wadamo badan ayaa waxay ku xeeran yihiin dhulka la yiraahdo South China Sea. China waxay ka dhisatay baddaas saldhig haddaad aragtaan aad la yaabi lahaydeen oo kan ku yaala Djibouti wuxuu noqon lahaa iqarso. marka China maxay waxa u sameynaysaa? China waa wadan aad iyo aad ugu adag in la farageliyo muxuu ahaa integritygiisa waxa la yiraahdo iyo sovereigntygiisaba. saa daraadeed waxaa dhacday in uu xiriir dhex maray maamulka Somaliland iyo maamulka Taiwan. maxaa keenay xiriirka? marka xiriirka waxaa keenay waa nafla caarinimo. xiriirka maxaa keenay? waxaa keenay jaahilnimo. xiriirka waxaa keenay aqoon darro. xiriirka waxaa keenay la socod la'aan aan lala socon national security-ga adduunka. Soomaali garan maxaa maanta ka xanibaya in China waxay saldhig weynaaday oo ku labalaaban kan Mareykanka ku leedahay Djibouti. maxaa ka xayiray China maanta? maxaa ka xayiray China in ay badaha maraakiibteeda ay soo dhoobto badaha muxuu ahaa Somaliland? maanta maxaa ka xayiray China in diyaaradaheeda iyo muxuu ahaa ciidamadeeda iyo awoodeeda in ay Hargeysa dusheeda ay ku sameeyaan dholatus? maxaa ka xayiray maanta? haddaba waxa ka xayiray waan rabaa inaan idinla socodsiiyo inaan idin sheego. waxaan idin sheegayaa reer Khaatumo waa dad ku nool iyo maakhir waa dad ku nool waqooyiga Soomaaliya. Soomaali garan khatartaas waxaan idin sheegayaa in aanu markiiba dareennay markii arrintaasi ay social media soo gashay in ay xiriir dhex maray labadaa dowladood ee aan cidina ictiraafsanayn ee Somaliland iyo Taiwan. marka waxaanu markiiba anigu shakhsiyan aan sameeyey in aan la xiriiro wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda China. way ii suura geli weyday waayo ma laha social network iyo kuma xidhna iyo yani wasaaradda arrimaha dibadda ee China emailna ma laha xitaa waayo waa national security-gooda weeye. marka waxaan sameeyey markiiba in aan emailo u diray safaaradda London oo ay fadhiyaan muxuu ahaa military attaché-ga Europe iyo political attaché-ga Europe labadaba waxay fadhiyaan UK. marka markiiba waxaan kula xiriiray emailka oo waxaan u sheegay in dhulka Somaliland ay ku nool yihiin oo ay haaf leeyihiin dad daaroodi oo ka soo horjeeda kala go'itaanka Soomaaliya. sidaa daraadeed China waa in ay arrimaha dib u dhigto. China waa in ay arrimaha de-escalation ku samayso.
ayaanu ka codsanay haddaanu nahay reer khaatumo muxuu ahaa dowladda China sidoo kale waxaan xiriir la sameynay ambassadorka fadhiya muqdisho oo u fadhiya dowladda China sababta aan saa u yeelayno macta sababta aan sidaa u yeelayno waxay tahay waxa weeye awoodda China kama xishooto cidda dalkeeda faraha la soo gasha danaheeda gaarka ah kama xishooto way burburisaa maxayna loo burburinayaa anaga ma faratoon iyo Muuse Biixi oo jaahiliina oo iyo gabadha la yiraahdo adna oo meel walba sida shooladii ugu dhacaya ayaanu u burburinaa muxuu ahaa ayaanu ku eeganaa muxuu ahaa national security dalka no ku eegan mayno in dadkayaga dhibaato ay nimanka sameeyeen in muxuu ahaa ay ka soo gaarto dhibaato dowladda China uma babac dhigi karno iskama celin karno muxuu ahaa in aan xitaa maanta la murano China ayaa ummadayada dhibaato ugu jirta waayo China waxay ku leedahay saldhig weynaaday oo inta uu la eg yahay haddaad aragtaan aad yaabi lahaydeen saldhigga maxay ka kontrolaan marinka la yiraahdo xumus waxay ka kontrolaan marinka la yiraahdo Mediterranean-ka ayay ka kontrolaan waxay ka kontrolaan China waxay ka kontroshaa marinka la yiraahdo Gulf of Aden ayay ka kontroshaa iyo Red Sea iyo Indian Ocean-ka ayay ka kontroshaa Djibouti ayay ka kontroshaa markii gabaygii ahaa inta libaaxu wixii habar dugaag loo wada keenay intuu wada cunay ayaa shabeelkii wuxuu qabsaday baa la yiri dawacadii oo siisay hilibkii oo dhan libaaxa oo ku yiri naanagoo quruun dhana maxaa qada inoo waayay buu yiri markaas waxay tiri warkii inoogu qabweynaa waa qooq waxa loo dilay anigoo qadaarkana miyaan qabash ka soo waqsan bay tiri Soomaalian garan waxa weeye China maalin dhaweyd yani Hindiya tay ku dhigtay waa la ogaa Soomaalian garan oo Indiyada aad aragtay oo balaayinta dadka ah ayay China dhagaa ka raacday maalin dhaweyd diyaaradaha Mareykanku iyo diyaaradaha Ruushku ma soo dul mari karaan mana u soo dhawaan karaan jasiiradaha loo yaqaano South China Sea uma soo dhawaan karaan Soomaalian garan wax kasta oo ku saabsan national security-ga China waxa weeye cagaha ay dul marinaysaa saadaradeed waxaad ogaataan dadka Somaliland ku dhaqano waxa maanta idin badbaadiyay khaatuma idin badbaadisay waana isku leenahay waana diblomaasiyadu siday u shaqeyso ha arkina yani waxyaalahan shaashada laga soo daayo sida fudud muxuu ahaa dadku ay uga dheehdaan maaragtay in la isku arko maaragtay faratoon iyo diblomaasiyiin Taiwan ah iyo in muxuu ahaa marka yani waxaan idin sheegayaa in arinta aynu tallaabo xoog leh ka qaadnay waajib baan naga saaran dadka Somaliland anagaba waa degannahay marka national security-geena waa inaan wada ilaalsano dalkeena waa inaan wada ilaalsano Soomaaliya garan war shooladan lagu dhacayo war jariska xornimadan war muxuu ahaa waxaan la raadinayo meel kasta in lala galo ma aha waayo maanta khatar ayaan dusha u saaranaa Soomaaliya garan sidaas daraadeed waxaan kaloo aad ugu farxay in ay kulmeen ambassadorka u fadhiya China Muqdisho ama Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya ay wada kulmeen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo arintii la dejiyay oo laga dhaadhiciyay maaragtay in arintan ay sida ay iyagu ay Somaliland ay u bandhigayso inaanay ahayn ay tahay wax local ah saadaradeedna la xalin doono muxuu ahaa ayna sida ku soo afjarantay arintii dadkii Somaliland ay China oo diyaar u ahayd awal inay soo gasho oo ay maraakiibteeda ay soo galaan xeebaha muxuu ahaa badda cas muxuu ahaa Somaliland iyo muxuu ahaa ciidamadooda cirka oo diyaar u ahaa in ay soo kacaan
oo ay dhoolatus ilaa 120 diyaaradood oo diyaaradaha dagaalka ah ayaa diyaar u ahaa inay soo dulmaraan Hargeysa Soomaalida garan iyo inay soo dulmaraan Boohoodle inay soo dulmaraan Laascaanood inay soo dulmaraan Burco inay soo dulmaraan Berbera Soomaalida garan waa 120 diyaaradood weeye sida daraadeed waxa weeye waxaad ogaataan dalkan sida uu ku socdo si uu ku socon karo ma aha war jaahilnimada iyo jariska xornimadu waxa weeye ummad waxay dhibaato u geysanaysaa aan diyaar u ahayn in ay maaragtay ay dhibaato naga soo gaadho waxa ay shakhsiyaadkaasi sameynayaan Soomaalida garan marka dadka reer Soomaaliland waxa weeye maanta waad badbaadeen maanta waxaad ka badbaadeen quwad kamida quwadaha adduunka ugu waaweyn in ay idin challenge gareeyaan oo ay dhibaato u geystaan muxuu ahaa infrastructure-kiina oo ay dhibaato u geystaan muxuu ahaa jiritaanka muxuu ahaa ummadda halkaa ku dhaqan ee malaayiinta ah waxa weeye waa in arrimaha laga fiirsado arrimaha waa arrimo sensitive weeye waa arrimo sensitive ah waxa weeye anagu waa garanaynaa diblomaasiyadda aqoon baan u leenahay diblomaasiyaddu ma aha wax يعني أتكسر بود وح الله وحي أتشعشها أتسميسه ماها ما الدبلوماسية يدو وحوية calculation محاكا جاي منكرة سو ما ذكرن محا إفكت كوجية لنكرتا سو ما ذكرن حاجات دبات كاسو جاري كرتا سو ما ذكرن حاجات مصلحات كهلي كرتا سو ما ذكرن ومحي واجبات ككاسارن فإذا أتكهليسو محوها وحيري أشاشة كسو صاريسو يعني what is the repercussions ee adiga kugu yeelan karto wanaad ka fikirto arinta waa in aad ka fikirto ummadda Soomaaliyeedna waxa la gudban meel kasto ay joogan inay arinta indhaha u furaan waxaan uga mahad celinayaa dawladda federaalka ee Soomaaliya sida ay markiiba ay arinta ay faraha ula soo gashay oo ay qirtay oo China u qirtay dawladda China in ay tahay sovereignty-geeda ama xuquuqdeeda muxuu ahaa iyo dalkeeda iyo shu'uunteeda u gaarka ah in dawladda Soomaaliyeed aanay faragelinayn oo ay waajib ka saaran tahay in la ilaaliyo sida China ay u ilaaliso annaga Soomaali ahaan sovereignty-geeda iyo dawladdeennaba sida ay u ilaaliso Soomaali garan marka dawladdu waajibkeedii bay ka soo baxday waan uga mahad celinaynaa maantana waxa badbaadiyay in dhoolatuska lagu sameeyo in dhoolatuska Hargeysa iyo Burco iyo Berbera lagu sameeyo maanta waxa badbaadiyay waa khaatumo weeye daaroodka waqooyi magaciisii ayaad maanta ku badbaadeen Soomaaliland garan dad walaalo ah baynu nahay dad wada degan baynu nahay dal baa naga dhaxeeya waalid baynu isu nahay Soomaaliland garan wax khatar gelin kara ubadka yaga iyo dalka yaga waxa weeye in aynu faraha la galno waxa weeye Soomaaliyeed waa in dadka idin horboodaya ee Somaliland jooga dadka idin horboodaya meelaha ay gacmaha idin gelinayaan waa in aad la socotaan waa in jaamacadaha looga doodo Soomaaliland garan ardayda for example Amuud joogta ardayda joogta Hargeysa yani legally adduunka bal eega sida uu u shaqeeyo adduunka Soomaaliland garan war maxaad ka faa'iideysaa in aad China la gorgortanto war China ma farmaajo no China ma aha farmaajo China ma aha Garachama ma aha China ma aha Ali Khaliif Soomaaliland garan China waxa weeye waa dal kamid ah dalalka adduunka ugu awoodda badan weeye Soomaaliland garan oo maanta yani hadii aad ku soo xadgudubto sovereignty waxa ka dhacaya Hong Kong maxaa ka dhacaya maanta haddaad moodaysaan in aan aniga idin kala hadlayo wax aan jirin sorry iga raali wax aan jirin haddaad moodaysaan in aan kala hadlayo bal eega maanta waxa ka dhacaya Hong Kong waxa iska leh China Hong Kong waxay diidan tahay in laga xukumo China ay diidan tahay Hong Kong waxay leedahay waxaan rabnaa inaan ka madax banaanano China waa diiday waxay awood lahayd ay maanta dul dhigtay muxuu ahaa Hong Kong marka maxaad u maleynaysaan muxuu ahaa Hargeysa maxaad u maleynaysaan marka Soomaaliland garan
وحوي وح خطر كجرا وح خطر كجرا محوها إن مانتا هشيسكي كدحي United Kingdom iyo dowladda China Soomaali garan oo ay China u arkayso 300,000 ee qof ee reer Hong Kong ah oo ay siisay muxuu ahaa dhalashada Ingiriiska iminka right now dowladda Ingiriisku China waxay u aragtaa in lagu soo xadgudbay muxuu ahaa yani wixii internal affairs kooda ahaa Soomaali garan maxaad u malaynaysaa marka Somaliland arrintaasi halka ku dhameyn mayno waxaynu ka shaqeyn doonaa anagu hadaanu khaatumanahay waxaynu ka shaqeyn doonaa hadii Allah idmo waxaynu ka shaqeyn doonaa in aan picture kale siino dowladda China Soomaali garan in ay jiraan quwado degan Somaliland oo iyagu aan ogoleyn in China sovereignty-geeda dhibaato loo geysto in la helo muxuu ahaa arrin aan halka ku dhamaan oo muxuu ahaa daba socota in China mar walba muxuu ahaa loo sharxo waxa yani dhibaatada keeni kara ummadda Soomaaliyeed meel kasto ay joogaanba in ay tahay ama waqooyi degano ama koonfur degano in laga ilaaliyo waxyaalaha geopoliticska ah waxyaalaha keeni kara in dhibaato xoog leh ay China ku keento inay ku weerarto muxuu ahaa quwadeeda gobolada waqooyi Soomaaliya saas daraadeed waxa weeye Soomaalidu waxay tiraahdaa waa baahanahay baqti looma cuno war itiraaf baan rabaa dalkaaga looma burburiyo itiraaf baan rabaa dalkayga yani dalkaaga looma burburiyo Soomaali garan China xagee saldhig ku leedahay ilaahay baan idinku dhaarshay Hargeysa iyo saldhigga China imise kilomitir bay isu jiraan waa Djibouti iyo Hargeysa intay isu jiraan weeye Soomaali garan awoodda inta la eg marka aad isku taabanayso yaad ka haysataa muxuu ahaa kalsooni ma Taiwan baad ka haysataa kalsooni de ha ka saarto laakiin aniga waan ku badbaadiyay maanta Soomaali garan aniga waan ku badbaadiyay badbaadinta aan ku badbaadiyayna waxaan ogahay caadifadaada in yani aadan garanaynba khatarta yani kaaga imaan karta muxuu ahaa inaad afka la gasho muxuu ahaa dalal iyagu ka awood badan yani siyaasad aadan warbal faratoon maanta faratoon oo ah muxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland uma baahnaba wasiir arrimaha dibadeed Soomaali garan waayo hadiiba uu inta idin horseedayo waxa weeye maanta waxa weeye dowladda Somaliland waxa waajib ku ah in ay shaqada ka ruqsaystaan Soomaali garan baarlamaanka gacan ku rimiska ah maanta waa inuu fariisto Soomaali garan xaalad khayr caadi ah ayuu dalku ku jiraa wallahi oo billahi oo tallahi inaynan ogeyn Soomaali garan akhrista journalada Soomaali garan akhrista journalada waxa ka soo baxaya caalamka oo dhan baa qoray khatarta uga imaan karta gobolada waqooyi ee Soomaaliya muxuu ahaa arrinta iminka ugubka ah ee faraha lala galay in xiriir lala yeesho oo Taiwan Soomaali garan wariimisan ka daanari wariimisa yani why hadda reer khaatumo maxay ula engage gareynayaan xitaa waanu ka horeynay dowladda Soomaaliya yani dowladda Soomaaliya waan ka hormaray xitaa anigu shakhsiyan Soomaali garan waan ka hormarnay in aan la xiriirno caalamka Soomaali garan oo aan markiiba dowladda China u ifino in arrintu sida yani ay Somaliland u dhigayso inaanay ahayn Soomaali garan waayo waxaan markiiba aragnay in ay buuhooda burburi karto waxaan aragnay inay laascaanood burburi karto waxaan aragnay inay burco burburi karto waxaan aragnay inay taleex burburi karto Soomaali garan marka China waa power we don't need inaynu muxuu ahaa iminka uma baahnin inaan China ay awood muxuu ahaa ay nagu maquuniso uma baahnin maanta Soomaali garan diblomaasiyaddu maanta oo dhan baa ku celcelinayay diblomaasiyaddu waa in ay leedahay xad waxa weeye xaasidnimada maalin walba ka soo yeeraysa afka adna Soomaali garan waxa ka soo yeeraya
afka muxuu ahaa Salmaan Cali Koore waxa ka soo yeeraya muxuu ahaa afka madaxweynaha Soomaaliya garan maalin walba in yani wax waa naga dhexdeeni weeye Soomaaliya garan we don't mind in aad maaragtay ay iska nacnacalaysaan we don't mind Soomaaliya garan laakiin marka ay noqoto nabadgelyada ama national security-ga waxa la yiraahdo Soomaaliya garan marka Faratoon waxa uu sameynayo isagoo matalaya dawladda muxuu ahaa dawladda asagoo matalaya maamulka Somaliland in uu yani afka la galo muxuu ahaa Taiwan Soomaaliya garan taana ay ka careysiiso dawladda muxuu ahaa China markaasna ay aniga caradi ugu dhacdo Soomaaliya garan war carada haday jeegaanta kula dhacayso mar raba inay aniga dhibaatada firka dhibaatadu inuu aniga isoo gaaro Soomaaliya garan ninka la yiraahdo Faratoon waa adeerkay weey Soomaaliya garan ninkan haya ummadda aqoonna u leh wax diblomaasiyadu tahay maaha no Soomaaliya garan waxa meesha jooga oo dhanna waa wada amateurs weeye Soomaaliya garan war dalkan maanta maanta maalin weyd waxaan daawanayay liibaan al-Cadaala Soomaaliya garan wiilal dhalinyaro baa soo waxay yiraahdeen liibaano annagu biyo aan cabno ma haysano Soomaaliya garan wiilashii aanu isku galaaska ahayn ayaa intay ka yimaadaan xaafadaha jeegaanta ayay inta noo yimaadaan ayaa waxayna yiraahdaan war maxay idin ka siiya Soomaaliya garan yani waxa ay ku soo qubaysteen waa inamada biyihii ay cabbi lahaayeen weeye Soomaaliya macnaha Hargeysa biyo la'aanta ka taagan ayay ku sheegaysaa arrintaas Soomaaliya garan adduunyada maxaa biyaha ka muhiimsan Soomaaliya garan in China lala dagaalamo in China afka lala galo waxa ka muhiimsan in dadka reer Somaliland lagala dagaalamo haraadka Soomaaliya waxay yaab leh Hargeysa halka dollar inta uu furinka ka gooyo haddaad barbar dhigto London wuxuu qaali ku yahay Hargeysa maxay ku dhacday sidee loo noolaanaya hadiiba yani Hargeysa iyo London uu furinkii maanta uu ku qaalisan yahay Hargeysa yani qofka saboolka ay see u noolaan karaa adduunyada si loo nool yahay baa jirta Soomaaliland garan waxa weeye waxaa muhiim ah in laga fakaro caafimaadka ummadda siday ummaddu u yeelayeen caafimaad waxaa muhiim ah in dawladda Somaliland lagula xisaabtamo maxaad dadka sidee gaajada ugala dagaalamaysaa Soomaaliya sidee ummadda haraadka ugala dagaalamaysaa sidee ummadda yani cudurrada iyo caafimaad darrada ugala dagaalamaysaa Soomaaliya garan marka yani waxyaalahaas weeye waxa dawladda laga rabo in ay concentrate ku noqoto in ay ka shaqeyso in ay dadkeeda muxuu ahaa not in ay dadka burburkooda iyo dhibka haysta oo nolosha ay ku hayso in ay tanna maanta ugu daraan waa kaafiya kala dheeri weeye Soomaaliya garan huriyo ninkii la oran jiray wuxuu yiri lama rooro weliga adigoon wax riixayn ridana waranka lama daro haddaan gacantu raacayn buu haddaan hadalka raarta loo gelin reer Somaliland hadal beerkii lama rogo waxaan idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba dadka reer Somaliland u kaca waxa yani idinka dhibaatada idin keenaya in aad iska ilaalisaan Soomaaliya garan dadka idin matala waxaad ogaataa inaanay idinka naxayn inay yihiin shakhsiyaad dan gaar leh waa inaad ogaataan Soomaaliland garan marka maanta يعني arrintaasaan ka hadlayay waxay ku saabsanayd sida Khaatumo u badbaadisay Somaliland ayaan maanta idin sheegayay muxuu ahaa in arrintaana ka harimayno ilaa iyo inta ay muxuu ahaa China ay kala garanayso xaaladda dhabta ah ee ka jirta Somaliland waxa weeye qoraalada iyo hawsha aan wadno waynu sii wadaynaa ciddii contribution haysa ciddii kale ee muxuu ahaa arrintaas sida aan u arko ila aragta waxay igala soo xiriiri karaan messengerka ayay igala soo xiriiri karaan arrintaa waa wadnaa muxuu ahaa iminkana waxaa noo dhiman muqdisho waanu ka salaxnay arrintii londonna waanu ka salaxnay European Unionka waxaa noo dhiman inaynu arrintaa ka salaxno
oon wafdi u dirno muxuu ahaa Beijing inaan wafdi u dirno oo la sameeyo de-escalation oo la sameeyo in maaragtay wixii dhacay oo kale inaanay mar dambe dib usoo noqon oo yani la ogaado yani waxaasi inay si khalad ah ku dhaceen waxa weeye intaasaan maanta rabay inaan idinla qaybsado walaalayaal waad mahadsantihiin ilaahay dhibka inaga saaro wabilaahi towfiiq qof walba oo Soomaali ah meel kasta uu joogo waxaan u rajaynayaa nabadgelyo caafimaad wanaagsan nolol wanaagsan bashbash iyo barwaaqo walaalayaal waad mahadsantihiin wabilaahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh